tagaba saldhigii dhaxoon idhaahdo maxaa laygu haystaa ayaa shalay waxa dhacday in gurigeygii la dumiyo taas baan horta shalay u tagay waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kuna wanaagsan daawada meel soo doonida afida ka joogtaan waa mar kale muuqaal cusub soo dhawaada saaxiibayaal markii ku horeysay ee aad soo martaan tahay waxaan ka codsanayaa inaad channelka subscribe saarto muuqaalkana aad like saarto share garayso oo aad la wadaagtaa asxaabtiina iyo eheladiina aad iyo aad baad u mahadsantiin oo aad ku mahadsantiin kabdahashiin soo baritaankiina hadda hore joogto waad mahadsantahay hadda cusubtuna soo dhaw subscribe saar channelkan waxaan ka codsanayaa boggeena Facebook ee Cabdirasaaq Maxamed isagana aad iga daawanayso waan hubaynaa muuqaalka ka daawanaysid inaad isagana like aad saarto soona follow garayso aad baad u mahadsantiin waa markale muuqaal cusub tani ila xalad waxa bulshada ku jiray hadalhaynta Safiya Tusmo oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed kuwa geeyiga Soomaalida loogu jecel waliba oo anigu hore halkan muuqaal aad kula wadaagay aniga laki aan hore ku soo bandhigay inay jiraan inaan tagnay goobtii gurigeeda laga burburiyay ee magaalada Boorame oo aan soo booqnay soo eegnay haddaba aragtidii ka duwan ayaa soo baxday oo si aan sidii hore ahayn ay u dhaceen waxa jirta in xalata video ay soo duubtay oo aynu wada arki doonaa ama wada dhageysan doonaa uu jiri videogaas oo ay sheegayso in la yiri waa lagu xirayaa wana loo hanjabay oo waa yaani hantidaad ay sheeganayso haddaba waxaan doonayaa inaan ka wada hadalno oo horta aan videogan yar yar wada dhageysano guriga shalay la dumiyay dad la geliyay ilaa haddana aan cid igala hadashay iyo cid xoolahayga magi doonto toona aanan garanayn ayaa haddana waxay ii dheertay in xadhig layla raadsanayo oo la igu yiri maxaan ku dhaday soo xiray xadhig baa tahay saddex maalmood ka hor baa layla soo hadlay maalintii soo saddexaad koobaad telefoonka ma qaban because aanu telefoon aan garanto badan ma qabto shalay maahina daraad baa layla soo hadlay waxa la igu yiri saldhigga dhexe ee Hargeysa ayaa laga doonayaa yakaale de waxaan moodayay waan fahmi waayay badee saldhigga dhexe Hargeysa waxa iga soo galay bari baan iman baan ku yiri anigoo doonaya maxaan ku dhahdaa inaan tagaba saldhigii dhaxoon idhaahdo maxaa laygu haystaa ayaa shalay waxa dhacday in gurigeygii la dumiyo taas baan horta shalay u tagay waaye si kasta haataba saaxiibayaal Safiya Tusmo waxa leeyahay walaashii qaali Somaliland Cabdi Ciise kuma turjunto dawladda oo sanadka kuma turjunto haddaba wala xiray iyo wala eryanaya imikada wax yar ka hor waxa arkay buug soo qoriyay degdeg Safiya Tusmo oo hadda jeelka loo taxaabay maxaa beenta inta la kalifay in la sheego in maadri anigu Somaliland shakhsi baan ka ahay maalin walba muuqaalka soo dhigay waxa war Somaliland cambaarinta laga daayay war dalkeena inaga leh war cid inaga ma laha war cid in wadankeena inaga jecel ma jirto war maadri hadina inagu dalkeena qurxisanin cidna qurxinaysa ma jirto waxaana sharafti dalkeena hadda social media ku jirtana waxa tahay dalkaaga ayaad ka turjumaysaa waxaan ku faraxsanahay oo runtii aan farxad ah inaan ahay qof reer Somaliland inaan qof reer Hargeysa inaan ku fanay dalkayga laakiin waxa sharaf darro ah in dad yar oo masaakiin inta muuqaal sameeyaan ay baraha bulshada soo geliyaan ama YouTube ama Facebook todonahaday ay lahayn degdeg Somaliland waxa lagu xiray Somaliland waxa lagu dhibaatay dawladda waxaan dimisay dawladdu ilaahay ka sako dalka iyo dadka wayada u taraysa guriga deginta hantida aad leedahay dawladdu hadda u soo baahato waad si caadi sharciyeena hantida adigu shaqsiyan u leedahay hadii dawladdu u soo baahato ilaahu shaarka ma dawladdu u baahato ay kugu qancisada waxay uga baahan tahay shaarka waxa ka soo galay magdhowgeeda xaqooda internet ugu siina qaadato markaas waxa leeyahay Somaliland oo nabada Somaliland oo nimcaysan Somaliland oo sharaf iyo karaamaysan ilmada raayal ayaa qurux badan ee aan ka dayno oo xumaanta ka dayno Somaliland wada leeyahay aynu joognahay siyaasadiga maxaa laakiin dalkeena dhalinyartan ka hadlayaan Safiya Tusmo waxa leeyahay walaashii qaali waxa kugu ayaan daraa kugu ceeba inaad maanta Somaliland oo dhan dhakada uga saarto hal shakhsi ama hal gobol Somaliland way ku wada anaga ku taageersan oo ku wadana oo ku jecel markaas Somaliland dawladda la xaleeyay halala saartay dadku dadkeeni shacabkuna waa shacabkeeni aad iyo aad baad u mahadsantahay saaxiib oo ku mahadsantahay kabdahashiin soo baritaanka inaad hore joogto aad mahadsantahay hadda cusubtay soo dhaw naga mid ah asxaabta daawatay ku xiran boggeena Facebook iyo YouTube kana Cabdi Official iyo boggeena Cabdirasaaq Maxamed kamid ah bye bye insha Allah si kasta haataba saaxiibayaal Safiya Tusmo waxa leeyahay walaashii qaali Somaliland Cabdi Ciise kuma turjunto dawladda oo sanadka kuma turjunto haddaba wala xiray iyo wala eryanaya imikada wax yar ka hor waxa arkay buug soo qoriyay degdeg Safiya Tusmo oo hadda jeelka loo taxaabay maxaa beenta inta la kalifay in la sheego in maadri anigu Somaliland shakhsi baan ka ahay
maalin walba muuqaalkan soo dhigo waxay war Soomaaliland cambaarinta laga daayay war dalkeena inaga leh war cid inaga ma laha war cid aynu wadankeena inaga jecel ma jirto war ma aday hadina inagu dalkeena qurxisanin cidna qurxinaysa ma jirto waxaana sharafta dalkeena hadda social media ku jirtana waxa tahay dalkaaga ayaad ka turjumaysaa waxaan ku faraxsanahay oo runtii aan farxad ah inaan ahay qof reer Soomaaliland inaan qof reer Hargeysa inaan ku fanay dalkayga laakiin waxa sharaf darro ah in dad yar oo masaakiin inta muuqaal sameeyaan ay baraha bulshada soo geliyaan ama YouTube ama Facebook todonahaday ay lahan degdeg Soomaaliland waxa lagu xidhay Soomaaliland waxa lagu dhibaatay dawladda waxaan dimisay dawladdu ilaahay ka sako dalka iyo dadka wayada u taraysa guriga deginta hantida aad leedahay dawladdu hadda u soo baahato waxdo si caadi sharciyeena hantida adigu shakhsiyan u leedahay hadii dawladdu u soo baahato ilaahu shaarka ma dawladdu u baahato ay kugu qancisada waxay uga baahan tahay shaarka waxa ka soo galay magdhowgeeda xaqooda internet ugu siina qaadato markaas waxa leeyahay Soomaaliland oo nabada Soomaaliland oo nimcaysan Soomaaliland oo sharaf iyo karaamaysan ilmaad rahyaan ayaa qurux